halkan oo ah mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ay Galdogob ka degan yihiin dadkii abaaraha ku soo xoolo beelay ayaa la aasaasay 4 bilood ka hor markay ay Galdogob ku soo bateen dadkii abaaraha ku soo xarooday waxaana ay u muuqataa meel daryeel dheeraad ah u baahan kaamkan oo la yiraahdo Allaale waxa ku nool qoysas badan oo duruufo adag wajahaya bilowgii rabadaanta ayay ahayd markii hay'adda Somali Relief Network ay barnaamij afurin ah oo ilaa hadda socda ka bilowday kaamka gudoomiye ku-xigeenka degmada Galdogob Cabdirasaaq Axmed Tooxyare oo hay'adaas u mahadceliyay ayaa dalbaday in gurmad dheeraad ah loo fidiyo dadka halka ku nool waxaan isugu nimid kaamka Allaale oo saaka afurin dad islaam ah ugu talagaleen inay afuriyaan 143 qoys maalin walba bisha Ramadaan sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta kaamka inaan xaqiijino ama markhaati ka noqono sidaas aan saaka u nimid kaamka Allaale afurka waxa bixinaya Somali Relief oo hadda ka horna baahida aragtay Allaale ama kaamkan ama dadkan baahan aragtay kula tala gashay inay waxay gaarsiinka soo gaarsiisay hadda ka horna biyo iyo u keentay iyo maaragtay magaciisi ilaahay baa mahadle haddana 143 qoys inay afuriyaan bisha Ramadaan inta ka hartay qorshaysteen sidaas u dadaalo mar hore mar saddexaad mar labaad waan niri dadka islaamka ah u dadaalo dadka xoolo beelay oo soo gaarsiiyay waxaad heli kartaan qaab baaqayga hore ku jiray kaliya dambe ku jiray intii marka maqashay oo aqbashay khayr Allah siyaaleenay inta dambe aqbali doonta ilaahay khayr badan siyaaleenay kaamka Allaale ee degmada Galdogob waxaa maantiito marti noogu ah hay'adda Somali Relief Network of North America hay'addaas waxay 6 bisha hadda ka hor noo ballan qaaday oo ay bixinaysay muddo 6 bisha laga soo bilaabo June ilaa hadda 20 oo soonkan ay uga faa'iideynaysa 143 qoys 143 qoys ayaa raashin maalinta habeenka uu karsanayo oo suxuurtii iyo afurkii isugu jira ayay siinaysaa muddada Cabduqaadir Umar Maxamed oo ka tirsan hay'adda Somali Relief Network oo soo gaaray dhawaan degmada Galdogob ayaa ka warbixiyay in safarkiisu la xiriiray inuu u kurkaro baahiyaha nololeed ee kaamkan ka jira iyo waliba barnaamijka afurinta ee hay'addu samayso qaabka ay u gaaraan dadka ka faa'iideysanaya shaqooyinka hay'addu waxaan u kurgalay oo aan soo eegnay oo ilaa shalay ilaa maanta wax qaybintooda iyo dadkaasi baahida ay qabaan iyo waxa aanu siinay siyaabaha ay u gaaraan ayaan uga soo kurgalay oo aan u nimid dadkaas oo 143 qoys ah oo maalin walba lagu afuriyo raashin ayriin iyo oo maalin walba ah oo dadkaasi ay quutaan waxa hawshaas noogu xilsaarnaa walaalkan Cismaan waan degmada Galdogob kaamkeeda Allaale kaamka Allaale halkaas oo aanu ka wadnay hawshaas waxa aanu hadda ka hor qaybinay ama aanu maaragtay ka qayb qaadanay abaarihii ka socday wadanka Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Puntland in aanu nimaadno degmada tan oo aanu biyo dhaanka ka qayb galno xilliyada biyo dhaanka haddana aanu ka qayb qaadanay afuri walaalka oo 143 qoys ah waxaanu haddana jecelahay in aanu wixii kale oo hay'adda Somali Relief Network ay awoodi karto in aanu inta kaga harina aanu kaamkan Allaale ka qayb qaadano